كراعي حتى والله جري رغم وكرة كيرة والله جري أنا مسك كراعي سير بدلا والدربية أنا واددونتهاي برهاد wuxuu ka tagay tani ayaan maanta daawaday dibinaana wallah abana dunida gaarsiiya dani waxaan leeyahay mudane Siciid Cabdulaahi Dani adiga adanaysta afahmo diida suu rabo adiga waxay doonayaan dulla ka helin dimuqraadi adiga wadiyo dawga loo maro adiga dastuurkiyo sharcigu ku daliil yahay adiga askarigii dayacan daawo waliga adiga dadaal baa uu ka cadaan midkii qaba soo baxdeen إلى دولة بدولة تاجرتان دولة لا تاجرتان تصدر كذا كورس بعدان وحصل شيخ عياريو dadweynaha kala duwan maanta isugu soo baxay barxadda Garowe oo muujinaya dareenkooda ay ku taageerayaan go'aankii dawladoodu ay gaadhay maxaa u soo baxayeen maanta maxaa u soo baxayeen Siciid Cabdulaahi Dani misinkan ku bilaabay qowlan been ahayn misinkan ku bilaabay qowlan been ahayn bulshada hadalkayga bismillaahi baan ku furay Siciid ha gadoodin ha gariirin hana gablamin alla sawiilkaagu wiilkiisu ku horrado lagugu soo hiray sidii geedda malharweyn lagama gobo sidii celyaroo hambaab الله بركة يا دولة عالمي الله بركة يا دولة عالمي صغير يا كبير قاعد تيسلهلا صغير يا كبير قاعد تيسلهلا عدو يوصلين سوقرين عدو صباح لين إلى دولة بدولة تاجرتان دولة لا تاجرتان تصدر كذا كورس بعدان بنتها وحصل شيخ عياريو مسلم يا دنيا عالم ووجه أرضي ديار كايد دكسوس دكسيله دكسوس ما كل شيء كي ولا جايبي وحلا جا حلاقي نكاسي وحاو الصبايا يو يا iyo sida Soomaaliya waanu iskugu hayno oo had iyo goor Soomaali waraageeda aanu doorayno umadiina inala gara weyday hadda koor baa wax la yaabaa muddo 15 sano qof ay meel la galaan ma ahayn mana taageersanin madaxweyne xasan waxaan leenahay haddii aad ka noqon hawshaas waxay tahay maamul waxa uu tahay gobolka banaadir laan baa lagu yiraahdaa arrintaas waxaan rabnaa inaynu bulshadeena Soomaaliyeed ee reer Puntland ay go'aankaas kaga dhabeeyaan madaxdooda ku taageeraan madaxweynaha ku taageeraan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka anoo ku hadlaya waxaan ayidaynaa go'aankii dawladdu ay soo saartay oo uga soo horjeesatay dastuurka la boobay oo qoladaas xasan sheekh u boobay baan ka soo horjeednaa go'aankaasna waa ayidnay madaxweynaha Siciid Cabdulaahi Dani iyo xukuumaddiisa aad iyo aad baan ugu hadcelinaynaa sida ay ugu dhiidhiyeen shacabka Soomaaliyeed oo la dhacay oo dana siyaasadeed laga leeyahay waxa nasiib darro ah xildhibaanadii matalayay Puntland oo maantay xoogaa shilmaada intay qaateen dastuurkii Soomaaliyeed dhacay oo waxa weeye nin oo dhacay nin oo xoogay nimankaasaan wax aad oo nasiib darro ah oo dadka matalahayay hadalku iska kooban yahay Puntland dawladda federaalka iyadaa dhistay hantideedii wiilasheeda dhiigoodii hubkeedii bay ku dhistay waa la wada ogyahay Soomaaliyana way wada ogtahay way ku khasaartay in badan bayna u koratay waxa weeye Cabdulaahi Suusid meesha uga baxay Puntland madaxa cag lagaga hayay way ku sabraysay way isnabaysay warkii alamtare soo dhaaf dastuur cusub baa loo samaystay khasaarahaas waanu ka maarannaa
sidii aannu u dhisnay ayaannu bannaankana uga joogi karnaa kartidaan ku dhisnay baannu leennahay inaannu bannaanka ka joogno waxaan u sheegaynaa ragga halkaa jooga laba nin waa la yaabay ina maxamed geeddi ogaa puntland waxay ka gashay dawladda federaalka wuxuu ku hadlay waa la yaabay waxaan kaloo la yaabay xildhibaanka matala Garowe oo garan waayay magacii guddigii dastuurka cusub soo dejiyay ay u bixiyeen NCC bay u bixiyeen markaas SSC baa ku soo farayareysatay labadaasba waa la yaabay marka waxa weeye Puntland shacabkeeda dawladdeeda odayaasheeda xoolaheeda hawadeeda baddeeda inta Soomaali waxay ku midaysan tahay la helayo oo sharci ah bannaanka ka joogaysa waana ka maarantaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi